بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada dhamaantiin bulshada Soomaaliyeed meel alla meel dunida ka joogtiin waa xildhibaan qab shaxsade oo idin la galab wanaagsan waqtigu haydin wacnaado xilli walba iyo saacad walba oo idin tahay war degdeg ayaan idin hayaa caawa soo yaaca dhamaantiin meel alla meel joogtiin galab wanaagsan war degdeg ayaan idin hayaa dhamaantiin dadka Soomaaliyeed sheer gareeya barnaamijka gaarsiiya dadka waxaan ku soo helay qatar nin argagaxiso ah oo la aaminay iyo walaalkiis oo qatar badan ku haya amniga dhammaan Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda hore ula degay shabeellada hoose haddana maaragtay qatar kale oo amni ay soo baxay xildhibaan qab shaxsade waxa weeye xildhibaan qab shaxsade waxa weeye wuxuu ka hadlaa cadaaladda wixii markaas jira qatarta bini'aadmiga dadka Soomaaliyeed ku soo aadan iyo dhammaanba cadaalad darrada lagu hayo bulshada Soomaaliyeed mar walba iyo saacad walba xildhibaan qab shaxsade waxaad kala soconaysaa page-ka mas'uul sare la yiraahdo waana sheer gareynaysaa haddii aad tahay muwaadin maaragtay ummadda Soomaaliyeed dhiigooda iyo maaragtay jiritaankooda iyo walaaltinimadooda iyo dawladnimadooda ay xanuun ku hayso walaal sheerde si aan barnaamijka idin gaarsiiyo galabta waxaan wadaa argagixisada maaragtay isbahaysatay nin la yiraahdo Najax Nusqaan oo ah gobernatooraha shabeellada hoose maaragtay qatar badan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku haya ayaan idin hayaa galabta bulshada Soomaaliyeed waxaa soo baxaya nin la dhashay walaalkiis ah oo la yiraahdo Isaaq Garow oo maaragtay argagixisada la shaqeeya oo ah ximin weyn oo firfircoon oo ganacsada ah oo argagixisada la shaqeeya oo dalka amni darro baan ku haya xildhibaan qab shaxsade mar hadduu ku baaro balaaya ku aragtay waana baaran tahay in badanna dadka Soomaaliyeed dhagar dambe uma maleegi kartid ayaan leeyahay waxaan idin la wadaagi doonaa galabta qaracan iyo maaragtay qaraxyo badan oo la abaabulay oo uu abaabulay ninka la yiraahdo walaalkiis oo lagu magacaabo hebelka Garow ninka lagu magacaabo Isaaq Garow ayaa la yiraahdaa wuxuu la dhashay ninka la yiraahdo Najax Nusqaan oo gudoomiyaha shabeellada hoose ah dhammaantiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inta dulman intii rabta inay cadaalad u kaalmayso barnaamijkan sheerdha galabta waa xasaasi nimanka shabeellada hoose qabsaday oo dadkii maaragtay isku diray oo bulshada Soomaaliyeed kala goysay oo beesha garre dhaxdiisa xataa heer ay iscaayaan gaarsiiyeen ninka la yiraahdo Najax maaragtay shabaabka ah sagaal wajilaha ururada qaniisyada tababara ummadda Soomaaliyeed maaragtay kala geeyay dhibaatada ba'an dalka iyo dadka ku haya walaal igala qabo oo gaarsii bulshada Soomaaliyeed gaarsii madaxda gaarsii shacabka gaarsii dadka Soomaaliyeed ninka la yiraahdo Najax waa gobernatooraha gobolka shabeellada hoose wuxuu dhibaato ba'an ku haya guud ahaanba gobolka wuxuu kala dilay dadkii maaragtay wax allaala wixii mashaariic isbaara ay ugu dhigtay waxaan rabaa inaan ka digo qatarta ugu weyn oo maaragtay arrimaha Najax waa ku jiri doonaa asbuuciidan waana wadi doonaa qatarta ugu weyn oo maaragtay lugta uu ku leeyahay ururka alqaacido waxaan rabaa galabta inaan u iftiimiyo bulshada Soomaaliyeed sar weyn oo la bilaabay xilligii Cabdiqaasin oo xilligii Sheekh Shariif oo ku taala inta u dhaxaysa Dufle iyo Cabdiqaasin agaarkooda ku taala oo qabyo ah oo Sheekh Shariif la bilaabay oo aaskeedu dhulka boolo waaweyn ka qodan yihiin oo shabaab ay ku kaydsadaan qaraxyada iyo miinooyinka iyo hubka magaalada Muqdisho laga weeraro laga raro qaraxyada magaalada Muqdisho meesha ay ka dhimatay baaritaan dheer oo aan ku sameeyay Ilaahay fadligiis iyo bulshada Soomaaliyeed oo gacan siisay iyo sirdoonka qab shaxsade intuba waxay isku raaceen sartaas in qaraxyo ku jiraan waxaan codsanayaa oo aan ka hormarayaa laamaha amniga baliis waxaan loo hadlayaa laamaha amniga magaalada Muqdisho inay ka gaarsiiyaan oo ay ku degdegaan oo saacadaha aan idin la hadlaa aad hawl ka qabataan sarta maaragtay ninka la yiraahdo Isaaq Garow oo dhisayo oo shabaabku maaragtay qaraxyada ku qarsadaan oo miinooyinka baabuurta looga xiro oo xamar oo dhan laga duushay oo hubku ku jiro oo miinooyinku ku jiraan oo qaraxyada ku jiraan oo kaydka dhulka u qodan yahay baliis laamaha amniga aan la hadlayaa dawladda Soomaaliya aan la hadlayaa waxaan la hadlayaa taliyaha gobolka taliyaha biliiska nabad sugidda dhammaantiin magaalada Muqdisho waxaa laga duushaa sarta qabyada ah ee ku taala ka soo horjeedka Cabdiqaasin garabka isbitaalka Dufle ogaada dadka Soomaaliyeed idin ma qarin laamaha amniga la hadlayaa barnaamijkayga waa ku tacantiin waa ku xirantiin yaan laga bixin wixii laga bixi karo waxay kala carri wax laga bixi kara maaha sanadaa lagu qufayay Isaaq Garow nin la yiraahdo oo ganacsada oo shirkad la yiraahdo Najax ayaa iskale
oo shubabka magaalada geliso ka shaqaysata qandaraasyo badan haysa qaraxyada ka shaqaysa shabaabka la shaqaysata tuuga ah qandaraasyada la leh ogaada qaraxyaa ku jira qaraxyo waa waray najax waa shabaab laba shaara ah dowladda la shaqeysta gobernatoore gobol nin shabaab oo ku guuleystay sida aad ogtihiin shabaabku saameyn badan ayay ku leeyihiin dowladda waa ku dhex milmaan waa isqariyaan shaarar badan bay soo gashadaan bulshada Soomaaliyeed arrinkan waa muhiim shaargareeya biliis gaarsiiya dhiigga walaalihiin Soomaaliyeed qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhaca miinooyinka baabuurta lagu xiro mas'uuliyiinta meesha laga shirqoolo gaari kasta looga xiro agagaarkan waxa guriga miinada ku jirto waa guriga Sheekh Shariif la bilaabay ilaa hadda qabyada ah oo mar kasta la dumiyo oo la yiraahdo naqshad cusub baa laga dhisaa naqshada hore ma rabno gurigaas ummadda Soomaaliyeed laga dhaqraa caasimada laga dumiyaa waxa iska leh ninka la yiraahdo najax iyo walaalkiis maaragta isaaq garow xaqiiq waaye arrinkan waa soo ogaaday sirdoonka qabshaxsada keenay dagaal badan baan ugu jirnay maalmaan daba joognay waxaan rabaa inaan madaxda dawladda ugu sareeya iyo laamaha amniga aan la hadlo ninka la yiraahdo maaragtay najax nusqaan wuxuu saaxiib leeyahay dhow oo gaarigiisa ku socdaa ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin arrinkaas waa in baaritaan lagu sameeyo shaqada uu ka og yahay iyo waxa uu kala socdo Fahad Yaasiin maadaama uu sirdoonka dalka muqaabaraadkii ugu sareeyo uu yahay madaxii sirdoonka uu yahay isla markaana uu niman qaraxyada ka shaqeeyo oo saaxiib leeyahay wax badan baan dhagar maqlaynay wax badan baan wax maqlaynay najax nusqaan gaaliga bulletproofta oo ku socdo waxa iskale ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waligay kama hadlin sirtaan waan ka hadlayaa waa ku qasbanahay Fahad Yaasiin in arrinka wax laga weydiiyo guriga hadda ka horna waxaan xog u hayaa in qaraxyo ay ka heleen laamaha amnigu maanta hal la baaro haddii qaraxyo laga waayo bulshada Soomaaliyeed dhageysan laamaha amniga ayaan la hadlayaa hal lagu dhaqsado baliiska gobolka la hadlayaa arrinkani waa arrin aan la siyaasaday karin baliis laamaha amniga ayaan la hadlayaa arrinka gurigaas qabyo qoraalka xamar ayaa laga dulshaa qaraxyaha ku jira najax iyo isaaq garow oo wada dhashay oo isaaq garow weeyahay oo qandaraas leeyahay oo ganacsada isku qariyo shabaaba ximin weyn oo shabaaba waaye waxay saaxiib leeyihiin labadooduba ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin arrinkaas jira ma ogaa karo waxa uu ka og yahay Fahad nimankan dhagartooda laakiin saaxiib hoose ay leeyihiin niman baawar la waaye ninka la yiraahdo najax wuxuu ku guuleystay inuu isku diro bulshada shabeellada hoose si aysan isugu imaan si aan bulshadii walaalaha ahayd oo wada deganeed oo maaragta qabiilada ahayd magaalo kasta iyo tuulo kasta laf qabiil jufo ayuu isugu diray waa iska hor keenay maanta waxaan joognaa heer garra nimanka la yiraahdo oo dadka ay dariska leeyihiin iyo deegaanka sharaf iyo magac ku lahaa inay ayagi maanta tuuf iyo quraanshow isu caayaan oo maanta baraha bulshada isku aflagaadeeyaan oo aan taariikhda dhicin oo dad magac la ahaa dad maaragtay shabeellada hoose deganaay oo dadka walaalaha daris kula noolaay najax halkaas oo marsiinaya seminaaro qaniisyada lagu dhiirigeliyo oo jinsiga ayuu ku qabtaa deegaanka maaragtay hadda oo aan idin la hadlayo wuxuu ku sugan yahay degmada Baraawe oo halkaas dhul boob ku hayo dad masaakiina oo deegaanka degan oo uu yiri maaragtay nimankii Ericsson Mobile shirkadii shidaalka qodaysay ayaan maaragtay dhul u raadinayaa waxaan rabaa inaan madaxda dawladda ugu sareeyo kala hadlo dadka masaakiinta dhulkooda in la boobo shidaalka iyo kheyraadka la soo saaray ma dadkay ay cayilinayeen oo ma wax bay ku soo kordhinayeen mise ummadda dhulkooda lagu boobaya waxaan rabaa shirkado ay ka mid tahay shirkadda Hormuud ayaa la sheegay inuu dhulkaas najax uu ka gadayo haddii ay arrinkaas jirto shirkadda Hormuud waa shirkad maaragtay dalka iyo dadka laga leeyahay ganacsigeeda waa madax bannaan tahay laakiin ninka la yiraahdo najax oo tuuga ah oo ummadda dhaca dad ayuu dhulkaas ka xoogayaa waa inaad iska fiirisiin waxa uu idinka gadayo iyo shirkadaha kale Ericsson Mobile madaxa dalka ugu sareysa ayaa la hadlayaa kheyraadka la soo saarayo garoonkii hore Baraawe laga dhisayo waxa laga xooga dad masaakiina waa taagan yihiin waa laga barakacshay bulshada Soomaaliyeed in la barakacsho maaha in dhulkooda la xooga maaha in maaragta shaar dawladeed niman shabaab u adeegsadaan maaha in business iyo lacag laga sameeyo maaha waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed walaalayaal soo istaaga waxaan leeyahay waxaan la hadlayaa Cabdicasiis Lafta Gareen madaxweynaha koonfur galbeed
afgooye dhaqaalaha ka soo aruura walaal waxaa qaata ninka la yiraahdo najax iyo walaalkiis waxaa lagu fududeeyaa qaraxyada waxaa lagu dilaa bulshada Soomaaliyeed shabaabka nimanka mas'uulka uga ah gobolka oo dhan baa qaata waa labadan nin maanta bulshada Soomaaliyeed waa u sheegay baaritaan badan baan ku sameeyay kasamiyada afgooye wixii ka soo xarooda waxaa qaata najax maalin kasta oo arbaca gaari baa qaada cash iyo dollar waxa loo geeyaa shabaab waxa kalena ayaga qaata qaraxyada sarta lagu sameeyo oo maaragtay soobe najax wuxuu xafiis ka furtay magaalada Muqdisho magaal afgooye kama furan baraawo kama furan maaragtay kama furan maaragtay liira magaalada liira Walanweyn hal xafiis oo kala shabeellada dhaxo dhan kuma leh xafiiskiisu magaalada Muqdisho ku yaala helicopter oo meel walba ku taga dhaqaalahaas soo heesta xoog korontada dhulkii ahaa oo baar Ismaaciil aagiisa ku yil waa dhacay warqada faalso u sameystay 1500 oo boosow dad oo maaragtay oo dan guud ah u dhacay afgooye meelihii dan guudaheedo dhan u dhacay war bulshada Soomaaliyeed waa dhacan tahay shacab waa dhacan yahay dawladnimo ma jirto islaamnimo ma jirto ama Soomaalnimo ma jirto waxaan leeyahay 24 saac waa in xilka laga qaado caawa waxa la sheegay inuu xilka ka qaadayo gudoomiyihii maskiinka ayo galadi oo maaragtay qaab qabiil u handaday oo xilka ka qaada oo soo dambiya lahayn oo xilka uga qaada aan bulshada daacad uga shaqeyno oo xilka uga qaada lacag aan arusaha ka hadlay kaliya oo warqad soo qoro oo yiri dhaqaalaha maaragtay dawladda hoose iska leh qasnada dawladda hoose lagu soo shubo arrimahaas baa taagan war dadka Soomaaliyeed ay meendhaan laadiin war dawladda Soomaaliyeed in shabaab miya xil ugu dhirtay bulshada shabeellada hoose ma gobernatooraad uga dhigteen niman hal degmo beesha garaxata hadii la isku daro hal degmo xataa gudoomiye degmo xataa male kama naqa kariyo gobernatoore waa lafta green caadiya waa la kor saara dadka dhibaato ku haya waa shabaab qof la hadli karta male meel kasta xoog ku maraa lama waardiyeeyo lama qarxiyo qof ma daba joogto hal baabuuro bullet-proof oo faad yaasiin siyo ku socdaa ummadii waa laayay garow kala geeyay maaragtay ninka la yiraahdo maantay beeshi garre iyo qolo islaamay male galadi meel buu ku jiraa biyo meel buu ku jiraa shanta caleemood meel bay ku jiraan beeliyaha wiyo la deganaayo wiligood la deganaayo meel bay galeen maanta cid salaamay male niman qawleysata caloosho shaqaystayaal oo la shaqaysto u keenay dadkii ehelka ahaa ee walaalka ahaa ee shabeellada hoose wada deganaa ee masaakiinta ee wax wada lahaa waa kala kaceen walaalayaal soo istaaga dawladda Soomaaliya la hadlaya waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha dalka iyo maaragtay madaxweynaha ugu sareeya inaan la hadlo oo aan ira shirkadda Ericsson Mobile oo khayraadka dalka maaragtay la siiyay bloogyada ka hela baraawo iyo dhulkiisa dad baa dhul looga xoogaya najax baa jooga dhul buu ka xoogaya waa in idin sheegay qabshaxsada wax ma hoos maraan ruuxan baa la shaqaysa dad baraawo dhan baa ila soo xiriiray dhulkoodii baa la dhacaya shirkadaha laga gadaya war bilaa calaykum dadka Soomaaliyeed soo istaaga war soo istaaga war najax maaragta garriya oo ka dhasho kala geeyo tuufi qorayo ka dhigay ayagiyo ilmo dhadhalow lacag siiye ku soo daayay hallay amaano asigoo shabaab oo afku dhiigla oo aan ilaahay aqoonin war walaalayaal soo istaaga waxaan rabaa inaan taliyaha gobolka la hadlo waxaan rabaa inaan la hadlo maaragtay ninka la yiraahdo Xijaar Saadiq John maaragta faad iyo ragiisa sirdoonka cid kasta sarta ku taala soo bahabinimaha la galo sarta ku taala maaragta Cabdiqaasin dhabarkiisa lambar 4 gadaashiisa Cabdiqaasin in la galo weey kay huba ku duwan ilaa shariifa la dhisooya kaydkeeda hub ku jira markasta waa la dulshaa naqshad kala laga dhisaa leeyna wax ka jira male shabaab miinooyinka ku qarsada gawaarida looga qarxiya najax iyo walaalkiis isaaq garooba iskale ayaga iskale shabaab dhaqaalaha ku bixiya waa la dulshaa waa la dhisaa waxa weeye 15 sano 16 sano dhisma ku socda ma jirto adduunka 16 sano sar la dhisaa balaaya ku duwan lama dhameystiri karo sideeda waa qabyo qoraal qaraxyada ku duwan xamaro dhan meesha laga aas waay markasta sar la dhisaa waay gaariya dabada loo galshaa qarax rakiban baa laga xiraa xamaro dhan waxa jagbontiyada soo dhaafa qarax kasta meesha uu ka yimaado waa sarta ogaada caawa hal la qabto haday bari gaarto way kala baxayaan nimanka idaacadayga meel walba ku xoreeyeen ogaada waa in cadaalada la keeno ninka la yiraahdo najax iyo walaalkiis isaaq garow oo isla dhashay oo daadi laba daado isku xigta oo kala weyn arrinkaas waa xaqiiq waa arrin qabshaxsada sirdoonkiisu keenan beel noogalama baran bulshadaan u adeegnaa dan gaar ma lihin qof macnii ma siyaasadayno qof ma ina adeersano waxaan rabaa caawa najax wuxuu soo sheegay oo sirdoonka qabshaxsada u soo sheegay inuu bedelayo gudoomiyada degmada afgooy ee galadiya miskiinka ah gurigiisa uu ciidan la dajiyay afduub buu ku haysayaa ma hadli kariyo xoog buu ku haystaa afar qowleysata oo la shaqeystay asiga weey gudoomiye ku-xigeenkii gobolka howlgab buu noqday juuq ma dhigi kariyo baraaw shalay maanta joogaa ma raaci kariyo inta u socotaa dhigi ma kariyo xilkan ka qaaday hadaad ila waranto maalinka ka horeysa helicopter wuxuu ku joogay ninka la yiraahdo ceelasha biyaha
qof u tegi karta iyo gudoomiye u tegi karta iyo ku-xigeen u tegi kara male keligii uu shaqaystaa xubno shabaab aha la socda qof u tegi karta male qof la warrami karta male Faad Yaasiin ragga ku xiran yahay balaayo dhan baa dabada ka riixda rag waaweyn oo shabaabka la shaqaysto dowladdu waa inay baartaa dowladdan annagaa u indhaa annagaa maydiya u ah bulshada annagaa hor taagan arrinkaa ha la qabto qof kasta ee muwaadin Soomaaliyeed ee arrinkaa ay wax ka hayaan iyo meel kasta maaragtay waxaan leenahay maaragtay barnaamijkan sheergareeya madaxa dalka la gaarsiiyo waxaa la jirta 8 degmo haddaad joogto oo Shabeellada Hoose walaal ila soo xiriir haddaad xog ka hayso nimanka alqaacidada ee isku xiran ee Shabeellada Hoose qabsaday maaragtay qaabka qabiil u qabsaday ee bulshada kala dilay ee ummadda laayay waa xildhibaan qabshaxsade halkan fariin messengerka igu reeb taleefankaada iyo macluumaadka aad hayso nooca uu yahay igu reeb walaal sheergaray barnaamijkan muwaadin Soomaaliyeed hadda tahay hadalkayga ma badinayo laamaha amniga ugu badan inta aan la hadlayo dawladda waxaan leeyahay 24 saac najax inuu qof xil ka qaado maana hadduu xil haayo bulshada Soomaaliyeed waxa qarxiya waa adinka waxaan leeyahay shirkadda Ericsson Mobile oo qandaraasyada ku guuleysata baraawe la siiyay iyo shirkadda Hormuud oo maaragta oo ku qiyaamayo ha ka joogto ha ka waantoobaano shirkadu waa shirkadaydi ma raba inaan shirkada aflagaadeeyo waa la idin qiyaamaya ninka waa shabaab dhulka bulsho shacab Soomaaliyeed oo ka dhacaya dadkii lahaaya taagan qabiiladii lahaaya taagan dadkii maaragta masaakiinta ahaa oo aan hadli karin oo cadcadka ahay oo masaakiinta ayaa dhulkoodii laga xoogaya walaalayaal soo istaaga shirkadaha waxaan leeyahay ha gadanina oo dhiig ha gadanina ka daaya dhulka shacabka masaakiinta oo la idin keeno xoog la idin kaga gado oo nin tuugo maamul loo dhiibo oo booba maalin kasta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin sheergareeya barnaamijka waa xasaasi waxaan wadi doonaa oo aan baaritaanka najax nusqaan iyo walaalkii Isaaq Garow oo shabaabka xoogaystay oo shacabka dhiigooda ka macaasha oo qaraxyada sameeya ayaan idin goy doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana daba joogi doonaa meel allaala meel joogti waqtiga idin wacnaado sheergareeya